waxaa muddooyinkan magaalada Baydhabo ka socday tartan isboorti oo u dhaxeeyay 30 kooxood kuwaas oo ugu dambeyntii labadii kooxood ee ku guuleystay maanta la guddoonsiiyay abaalmarino. munaasabadan labada kooxood ee ku guuleystay tartanka isboorti abaalmarino lagu guddoonsiiyay oo ay ka soo qayb galeen wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Baay Cabdi Aadan Hoosow, gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin, gudoomiyaha isboortiga gobolka Baay Abduqaadir Shariif iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxaa kulanka ka hadlay kana sheekeeyay ujeedada kulanka. gudoomiyaha isboortiga gobolka Baay Abduqaadir Shariif Hirow koonina ma taha koobkii 4 bilood oo socday oo la guddoonsiyo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kasta oo kaalinta koowaad oo raadi Baydhabo hayti iyo kaalinta labaad oo midnimo hayti abaalmarintaasna qaadayaan armo kale oo nigidalka dhamaysadana. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadana may ku wareejiyeen sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin iyo gudoomiyaha gobolka Baay Cabdi Aadan Hoosow. alxamdulillah way maray xafladda oo maanta qiimaha leh oo anaga ku soo qayb galnay anagii wasiirkeen iyo barsaabka iyo dhalinyarada isboortiga iyo wariyaasheeda waa arrin musaysa 4 bilood oo socday tartanka isboortiga oo magaalada Baydhabo gaar ahaan degmada Baydhabo. waxaan u malaynayaa kooxihii ciyaarta waday qaarna way guuleysteen, qaarna maxaa la yidhahdaa maxaa laga guuleystay, qaarna waxay soo galeen bariimo, qaarna waxay soo galeen sugunta. maanta xafladan waxaa loo samaynayaa sidii abaalmarin maxaa la yidhahdaa maxaa damwadaag oo ay ku talagashay maadaama ay 4 bilood ciidan gacanta ku haysay isboortigii ka socday maxaa isbartiimada Baydhabo ay ku maxaa ku hogaaminaysa hawshaas. waxay soo go'aamiyeen in xafladan la dhaga ayaga iyo maamulka gobolka maamulka degmada iyo wasaaradda isboortiga madii una kooxaysi dibsaay eelam ang mahali go sports school lungu dhalinyarada maamulka kulli mahali daliila malhado daliila mayna faday badilis daliila togal bisaas ahaat towal dumyaas naan xafladu uma marka onanin kaweeri waxay tahay koob la dhiib kooxda guuleysatay koobkii la siiyay kooxda guuleysatay maxambaliyay kooxda kale oo guuleysatay oo eedan dalaale insha Allah ta'ala kooxda tankigda madii oo liir aragtayda koobsha la siiyay singa jaraan oo dhanbay la siiyay rogan madaxna ku bay kala doonto ilaahay markii idan ma intiin waqti ka uruur badan karaan ma dhawaayay wasiirka isboortiga. ugu dambeyntii ayaa waxaa kulanka soo gabagabeeyay wasiirka isboortiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. runtii tartankan bilowgiisii ilaa dhamaadkiisii maanta u joogna xafladiisii soo qabanqaabiyey waqti badan ku bixiyey. waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxda gobolka iyo degmada iyo guud ahaan kooxihii tartanka ka galay iyo hay-adda fududeysay qabsoomida tartanka iyo dhammaan wariyaasha telefishinada idaacadaha ka socda. waan islaamayaa sanad kadib runtii warka intiisa badan gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyihii ciyaaraha zoonka ayaa warka intiisa badan galeen. warkayga ma badno, waxaan rabaa inaan kusoo koobo siyaasadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku aadan arrimaha ciyaaraha iyo dhalinyarada
oo ay wasaaradaydu wakiilka kaga tahay. tartankan isboorti ee muddooyinkan ka socday magaalada Baydhabo ayaa waxaa taageerayay guddiga Danwadaag oo isagu ka howlgala magaalada Baydhabo. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.